بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله شكر رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. marka koobaad dhammaan ka soo qaybgalayaasha shirkan isugu yimid ee Western Cape jaaliyadda Soomaaliyeed waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka. السلام عليكم ورحمة الله. مشرح مدحويني جمال أحمد إبراهيم، أنت مقشي أنت كلب واقن dadka qaarkood ama Soomaalida inta badan waxaad arkaysaa nin walba inuu madaxweyne soo sharaxay, laakiin waxyaabaha jira marka idin sheego sababtaan isu soo sharaxay inaad fahmi doontaan ayaan filayaa. maxaa wadanka socdo, xaaladda maanta ay ku suganta wadanka uu ku sugan yahay marka aad fahamtaan iyo waxaan soo marnay, waxaan dareemayaa inaad wax badan inuu ra'yigiin iska bedeli doono. 24 sano ayaan siyaasadda Soomaaliya ku jiray, ayaan dhinacyo badan ka soo shaqeynay. waxaan ka soo shaqeeyay xogyaha joogtada, agaasimaha soo noqdo gobolka Banaadir aan ka soo shaqeeyay, kadibna waxaan u wareegay urur goboleedka IGAD. waqtigii Cabdullaahi Yuusuf ayaan intaas ka soo shaqeynayay intaanan ma aragtay IGAD aan u wareegin. mar ayaan ma aragtay ra'iisul wasaare soo sharaxay waqtigii Nuur Cadde dadkii la tartamaan ahaa, marka ay ma suurtagelin waxa la yiri odayga adeerka u dhaafo ma aragtay isaga chance la shaqay. Cabdullaahi Yuusuf ilaahu naxariistay afkiisa saas ugu yiri. tan iyo waagaas waxaan ka shaqeynayay urur goboleedka IGAD la soo shaqeeyay. inta badan waxaan ku howlanaa dib u heshiisiinta, xalinta khilaafaadka iyo muxuu ahaa bulshada caalamka ayaan la shaqeynay. inta badan Soomaalina meel aan khilaafkaas ma aragtay xalinta khilaafaadka aan u tagama leh. intii khilaaf dhacay oo dib u heshiisiin la qabanayay Jubbaland, Koonfur Galbeed, Tukaraq, Somaliland, waqooyiga iyo Puntland heshiiskooda, Galmudug iyo Puntland wixii ka dhacay Kalkacyo, muxuu ahaa Dhuusamareeb, Ahlu Sunna iyo Galmudug meel aan heshiis ka gelin ma lihin si aan ma aragtay xal u raadiyo arrimaha dhibaatada ka taagan Soomaaliya. horta sida kalena muxuu ahaa nin wax badan arrimahaas oo idilkoog oo Soomaalinimada ay ku dheer tahay, ehel badanna lahaanahay. sida lii malayna ha u malaynina in aad igu tarisaan nin mudulood waay. marka nin ehel badan oo meel walbo ku jiro ayaan ahay. sababtana waxaa keentay Soomaalida saas u dhalatay. waxaan la sheegay iyo beentan la isu sheegay iyo qabiil wuxuu yahay iyo micnaheeda wax badan aan ka ogahay. inta marka laga gudbo wadanka waxa ka jiro, dadku waxay barteen in been la isu sheego. waxay Soomaalidu u taqaan majaamileys, waqooyigana waxa laga yiraahdaa muxuu ahaa ila meerayso. laakiin waxaan rabaa maanta inaan runtii isu sheegno waxa jiran inaad dhab u ogaataan. horta wadanka waxa ka jiro oo dadka lagu dhaqo waa been, dulmi iyo ma aragtay wax aan loo dul qaadan karin. cadaalad darrada heerka ay gaartay lama sheegi karo. intaas waxaa sii dheer ninka aad ka sugaysid inuu run kuu sheego
oo aad run laga filaya ayaa beenta koo wado waxaa ka mid ah sheekhi hadduu been kuu sheegayo madaxdii hadday been kuu sheegayso talihii hadday been sheegayeen dadka maxaa laga filanayaa waddanka horta waxaa baabi'iyey waxaasoo kale waayo hadda waxaa ku sii darsamay boob nin walba wadna uu faraha ku hayaa 30 sano ka hor markii qabta ay dhacaysay wixii lagu bilaabay iyo maanta meesha la taagan yahay waa isku mid marka haddii 30 sano kadib waxa aan filanayna ay meesha ay taagan yihiin macnaheedu waxay tahay wixii la soo qabanay waa lagu fashilmay maxaa yeelayna in maanta aan horumar gaarno horay loo socday aheed inaan qabiil isugu faano la kala aarguto oo arrimaha saas oo kale nin walba oo mindida u soofeysanayo wax shaqaynaya ma aha arrinta taagan ayaa saas noqotay sida maanta aan taagannahay haddaan ku sii wadno waxaan ka baqayaa arrinteena inay ku soo dhammaato sidii wadamada qaarkood waddan ayaa lagu tilmaamaa 200 sano ayay xornimada intay heleen ay tahay waa waddan la yiraahdo Haiti maanta wadamada ugu liito adduunka ayuu qayb ka yahay oo wadamada Afrikaanka ayaa dhaamaan marka 200 sano nin xornimo helay maanta meesha uu taagan yahayna wadamada Afrikaanka uu ka sii liito oo ku yaala muxuu ahaa Mareykanka annaka inaan saas noqono qaabka aan ku socono ayaa u eg marka dilalka inta ka jiro dhibaatada idinka linkugu geysanay si fiican ay dareensanahay wax badan waa ka maqlay bal laakiin fiiriya waxa kale wadanka ka jiro 2 nin ayaa sigaar ku dagaalamayso oo ciidan ah xabada la isku furaya 5 nin iyo muxuu ah gabar oo ma aragtay uur leh iyo caruur ayaa meesha lagu dhameynaya waxa la leeyahay marka ka soo qaad ma lihin wiifta dishay caruurtoodii iyo wixii meesha seeta ka dhacay meel lagu og yahay ma lihin waxa wadan ka jira taas arrintan aad hadda sheeganaysiin iyo ta wadan ka jirto waxa keenay waxa dhibaatadaas ay ka siman yihiin dadkii arrimahaas qaban lahaayo madaxda ahaa ayaa ka jiif waxaana gabay reality-ga marka laga hadlo waa madaxda wadanka waxa burburinaya runtan lisuma sheegayo inta marka laga baxo qatarta maanta wadanka ku soo food leh wax yarna aan kaaga taabta ayaa raba intaana arrintan ganacsiga iyo xaaladan aan gudaha u galin 30 sano la soo dhaafay maanta ay Soomaali qatarta ku soo food leh ee ka darantahay waan idin sheegayaa adduunka intiisa galay diiradda waxay soo saareen Soomaaliya kheyraadka ku jira awgiis iyadoona dadkii aan la diyaarinin waxa ay la boobay iyo sida wax loo rabo ruux ka hadla aysan jirin ayaa leeyahay waxaan rabnaa inaan ma aragtay shidaalkeena aan iibino wadankiya si dadban loo iibkeenayaa iyadoona wax lagu heshiiyay aysan jirin waxaan lagu ogaan karana ma lihin oo dhulka xataa ma ahin meeshan wax lagu kala ee shidaal laga soo bixinay leeyahay badda dhexdeeda way ruux aad ugu tagaysidna ma lihin nimanana la waa iibinaynaa oo suuqan geenaynaa heer waxaa la geli doonaa haddii arrintaneeta aan wax laga qaban ama ilaahay oona dad u soo bixin in annakoo taagan wadanka nagala wareegaa waa qodobka labaad in ay noqotaa nin walba ninkii dan iyo ninka ka xoog badan oo intaas chansiga u helay inuu heshiiska sameeyaa inuu kambaniyaal ku xirmo qabiil walba kambani dabada ka galaa maxaa yeelay waxa adduunkan waxaa ka jira kambaniyo oo xoog badan oo dawladaha ku xoog badan marka bari ka maalin wixii annaka aan sameynayno hadda meeshan la isku laynay haddana haddii loo bedelo in arrintaas ay saas noqoto dhib ka badan ayaa la gelayaa marka waxaan ugu soo food leh ayaa waxaas oo kale
waa ka baxay arrimahaas waa soo gaabinaya marka waxaan rabnaa sidee looga hortagi karaa xaaladda Soomaaliya ay ku jirto taasoo kale way doorashada waxa ka socdo waa aragteeno Bob oo Lisbooba iyo meesha u socdo wax la og yahay ma leh laakiin waxayna dadka madaxda ayna fahmin wili horta arintan Bobka arin hadda bilaabatay miino arin ugub ee ma ahan hore u soo dhacday waa li soo boobay tiyaan la wadaa ninka boobay inuu na guuleysanaynin oo nin walba fidna bilaabo fidnad inay isaga ku soo dhamaanaysa ma ogo marka taasna meeshaasaan uga baxaya qodobka kale waxa aan rabo horta oo hadafka ama rabitaanka haayo ma ahan madaxweynaha rabaa ee ma aragtay kaalaya taageera kaliya ma ahan waxa aan doonayo oo Ilaahay aan ka baryayo waxa waay inuu Ilaahay sabab igaaga dhigo in Ilaahay ma aragtay ninkii xal keeni lahaa oo igaaga dhigo wadankaneeta aan dejiyo waxa aan rabo ayaa taas haddii qeyr ay tahayna Ilaahay ay siiyo qeyr hadayna ii ahayn Ilaahay ma aragtay ha iga xijaabo dhibaatada maanta Soomaaliya haysato dhinacyo badan hadaad ka fiirisid abaara lagu jiraa iyadoona abaar lagu jirin dadka xoolaha iyo dadka siiba ma aragtay meelaha ma aragtay aan magaalada ahayn doofaarada iyo dadka biyaha isla cabo reality way soo ogaad hadaad rabtaan waxaan anaka soo aragna way dumarka wax bartay heer waxay gaareen maxuu ahaa la yiraahdo sharaftooda inay ku iibsadaan inay shaqo raadsadaan waxa wadanka jira way dastuurkeena waxa ku qoran saldhig waxa uu yahay diinta xaaladaha hoos marka u soo gashaan in diinta uu saldhig u noqdo dhaafe waxa meesha ka jiro dadka mas'uuliyadda loo dhiibay diin waxay ka ogyihiin ma leheen oo ma aragtay xaaladooda Allahu a'lam wadanka waxa ka jira asaas noqday dadkana runta in la soo sheego lama rabo majaamileys iyo maxuu ahaa ila meeraysa ayaa lagu jiraa intaas markaan ka baxo hadafka aan wado oo wadankan inaan wax uga qabto aan rabo maadaama lagu soo fashilmay 30 sano jidkii aan mareynay waxa aan doonayno xawaay jid cusub inaan jeexano qad cusub Soomaaliya loo qabtaa ka reeban wixii lagu soo shaqeynay aan raad lug irad aan ku lahayn maxaa yeelay 30 sano wixii aan ka shaqeynayna fashilan taaganahay waa maxay jidkaas in cadaaladda number 1 aan ka dhigno in aan raadino dadkii maskaxda lagu xukumo hadda waxay noqotay maskax jiran dadka maskaxda wanaagsan laho aan ma aragtay qabyaaladda oo maskaxda jiran aan ku shaqeynaynin inaan baadi goobno in wixii la qalday aan saxno ma ahan inaan eedeyno dadka ninka waa dadaalay 30 sano la soo dadaalay dad badan loo dhiibay wadankii laakiin wali meeshii jugjug meesheeda joogan taaganahay ha ahaato nimankan waa dadaaleen waxay ku dadaaleen taariikhda sheegayso laakiin maanta in la iscambaareeyay iyo hadal waqti aan iskaga qaadno wixii taariikh gali lahaa looma baahno annaka maxaan bilaabeynaa qad cusubaan jeexina wada kaleeto oo sax oo aan wax ku sixi lahayn aan raadinayna waxa ugu muhiimsanaa taas inaan isla raadino baadi goobno halyeega Soomaaliyeed oo maskax fiican maskax fiyo wax ku hagi karo in aan wiligeen aan qabyaalad aan daba joogno meelayna gaarsiinaysa ma lahayn meeshaneed hadda waxaad aragteen qabyaalad laguma dhisin laakiin markaad aragtaan nin walba Soomaaliya damiir leh wuxuu leeyahay haddii wadankayga uu sidan ahaan lahaa wadanka iskama noqonay haddaan laga shaqeyn qeyba ka tiin nin walba mas'uuliyadda ka saaran inteen marna halkeen geynaa way marka arintaas anako ka duuleyno waxa loo baahan yahay in wax badan la bedelo ay u baahan tahay in nidaam sax aan bilaawno in aan runta isu sheegno in Soomaaliya sidii dib ugu soo noqon lahayd la raadiyo sida lagu raadinayo ee dadka waxa ugu muhiimsan aan laga leexan karin waxa waaye nin walba mas'uuliyad inuu saaro cadaaladna in lagu raadiyo laakiin waxyaabaha aan soo aragno waa maxay Soomaalida annaka naftirkeena ayaan rabin cadaalad in la helo sinaantii aan diidanahay
dad idilo muslim oo Soomaali maxuu ahaa isirkooda la og yahay la leeyahay waxa way boon way kan waxa way waa laga roon yahay qabiil hebel qabiilkayga ka fiican haddii sinaan la ogoleen cadaalad sidee ku imaanaysaa cadaaladii waa ninka inaan liqi karno runta aan isu sheegi karno cadaaladda saxda la raadinayo dad muslina wadanahay ilaahay qabl ruux walba qalbigiisa ayuu daalacanaya wajigiisa ma aha isbedel dhab ah in la keeno marka waxa aan raadinayno waxa way wixii beenta la sheegay ma aha isbedel dhab ahna hal ma keeni karo waa in nin walba oo ma aragtay oo dhaxda soo xirtaa arintan la raadiyaa taasna intaasaan oga baxay aan u soo laabana marka hal qodob oo muhiim ah waxyaabaha soo arkayna rabaa wax yar inaan kaaga taabo madaxdeena iimaankooda wuxuu gaaray 15 milyan oo qof waxay isla lahaayeen inuu qaato accountigiisa jeebkiisa ku shubto ninka arintaas sameeynayo marka inuu wadanka iibiyo wax u diidaa mi sheegi kartiin no waxyaabaha dhacaya waxa soo kale marka ninka xanuunkaas hayo iyo waxa lagu sameeynayo gabdhaha yaa u dul qaadan kar ma iska fadhiisanayna ninka wadanka iibinay waxyaabaha ay soo kiciyay aan ka dhidhinay waxyaabahaas ka mid ah waxaad arkaysaa gabar 20 sano aan gaarin oo 5 jeer la soo furay nolosha ay raadinayso mi sheegi kartiin xaaladda wadanka jirta ayaa saas ee dhibkan haya kaas ah maxaan marka aan sheeganayna maanta inaan suwaar qurxan soo qaadano inteen ku faani karnaa waxaas caruurteena iyo dadkeena ku dhacayay intaas marka aan ka gudbo aan u soo laabano arinta ganacsiga iyo xaaladaha wadanka ka jiro iyo waxa idin haysto iyo waxa linka raadinayo South Africa iyadoo hadda qaxooti la yahay ayaa la yimid laakiin boqolaal sano ka hor Soomaalidu wadankan waa ka ganacsan jirtay Mozambique ka ganacsan jirtay sharaac ba doomaha sharaaca la soo raacay taariikhda sidee sheegaysa way Maldives dadkii waagaas xukuumay 500 sano waxay ahaayeen niman Soomaali ah taariikhdu waa raadin kartiin marka maanta laakiin idinku qaxooti marka joogtiin dhibaatada inay haysato waa dareemi karaa laakiin taariikhda naftirkeeda in dib loo arko wax badan aan raadino wax ku qasbanahay hasa hatee ganacsiga Soomaaliya intuu ka bilaabmay sideen wax u jiraan intii yareedo annaga ka ognahay waagii siyaad bare ay dawladda jirtay ganacsiga wuxuu ku koobnaa dawladda public monopoly allahay maxuu ahaa korontada iyada waday telefoonada biyaha iskuulada dadkana shaqo badan ayaa loo abuuray hadda wixii waa isbedeleen private monopoly ayaa la noqday nin walba shaqada hadoo rabo maxuu ahaa meesha ka shaqeynayo wuxuu qaraabadiisa u geynayaa wax badan in laga bedelo sharci kama yaalo xaalado badan ayaa u baahan in wax laga bedelo shuruuc iyo nidaam loo sameeyo intaas marka hadda maxay dawladdu waa inay qabatay tahay dawladda waa in shuruucna ay sameeysaa wixii regulation ay ku sameeysaa la isku daraa private iyo public sector-ka laakiin waxa ugu muhiimsan ayna dawladda ayna fahmi karin waa hal qodob oo muhiim ah idinkan dadkana ay ganacsatadana ay fahmi laayihiin ganacsiga waa waxa kaliya dawladda ay ku nooshahay oo loo baahan yahay in la iska kaashado dawladda way ku qasban tahay ganacsatada inay kobciso ganacsatadana waxay ku qasban tahay inay bixiso canshuurta si dawladda iyo nidaamka uu socdo kaalinta marka ganacsatada ee dib u dhiska wadanka iyo kobcinta dhaqaalaha waxa ugu muhiimsan waaye dawladana wax laga baryaaya ma ahan aqoon darra hayso ma fahamsano
inay wado gacanta ku hayso wada shaqaynta ay meeshaas ka dhalato waxa dowladda looga baahan yahay waay hadafka koowaad oo aan qabanayane ganacsatada waa in la siiyaa wax walba ay u baahan yihiin la taakuleeyaa si ganacsigooda iyo dhaqaalaha ay sameynayeen meel walba ay joogaan laga warqabo si ay ma aragtay dhaqaale xoog leh u sameeyaan biri ka maalin 5 sano 10 sano markaad joogtiin waxa aad hadda ka shaqaynaysiin ganacsiga meena lacag inaad yeelataan oo horumar oo sida wadamada kale looga shaqeeyay inaad gaartiin waxa laga rabo waa dawladda inay gacan idin siisaa marka haddii maxuu ahaa ganacsiga gacan aan la siinin iyo nidaamkan lagu shaqeynayo haddiina wax laga bedelin marka xaaladan xaalad shaqeynaysa ma horumarna lama gaari karo waxaan idiin sheegayaa inay jiraan nidaamyo badan ay dawladda looga baahan yahay waxaa ka mid ah in aad idinkana hami u yeelataan waxa ka jiro suuqyada wadamada ay dawladda idin furtaa iyadoo heshiisyo galayso iyo gudaha waxaa jiro heshiisyo la galayo oo laba geesood ah ama caalami ah oo loo furayo wadanka ganacsiga dadkii ka shaqeyn lahaa marka inaad qayb ka noqotaan oo heshiisyadaaseeto lagu saleeyo ganacsatadeena wixii ay ka shaqeyn lahayd ama chansigii loo furi lahaa haddii aadan ka faa'iidaysan wax micno ay samaynaysa ma lihin wadamada waxaa ka jira Comesa waxaa ka jira wadamada diriska oo IGAD ay hadda abaabulayso in la isu furaayo laga shaqeysta waxaa kaloo la samayn karaa wadankan aad joogtaan wadan horumar weyn gaaray waay sidee aad uga faa'iidaysan kartaan in la isku xiro wadankaneeto oo wadanka looga faa'iideyn lahaa marka iyada naftirkeedu wuxuu u baahan yahay dawladda inay heshiis la gasho chance leedin siiya aad ka shaqaysaan si wax alla wixii inta loo baahan yahay inaad inta ka safrisaan Soomaaliya aad geyn kartaan in chansiga waxa aad aragtaan oo wadanka muhiim u ah in aad taladeeda bixin kartaan sidii wadanka looga faa'iideyn lahaa idinkana aad uga faa'iidi lahaydeen isku xirkaas waxaa looga baahan yahay dawladda laga rabaa inay ganacsatada gacanta ku hayso inay la tashato inay suuq badan oo alaabta iyo wixii la geyn lahaa iyada ay u diyaarisay soo saarto waxa wadanka baxan inay dibadda geeyaan waxa dibadda ay ka rabaan inay heshiis sameeyaan oo canshuur dhaaf loogu soo geliyo maadaama heshiisyada wadamadan ka dhacayiin taas ka mid ah hadda Comesa oo kale waxa idin sheegaya 20 wadan ku heshiisay 10na waxa la yiri idinka maadaama shuruucda aadan buuxin goob joogaad ka tiin sida Soomaaliya oo kale laakiin waqti yar kadib waxa dhici karta in loo ogolaado inay qayb ka noqdaan taasoo keeni karto waxaad ka qaadaan wadankaas in meesha aad geynaysiin canshuur la'aan lagu geeyo wixii Soomaali laga keenana canshuur la'aan inta lagu keeno si aad uga faa'iidaan Turkiga oo kale heshiis marka lala galayo ganacsatada waa inaad qayb ka noqotaan oo ogaataan sida aad uga faa'iidi lahaydeen marka dawladda iyada jiiftay ganacsatada iyadu waxay u tahay dadkii ay gacanta ku haan lahayd horumar ay gaarsiin lahayd ganacsatada markay waxa waaye matoorka wax lagu wareejiyo waay hal step markay wareejiso dawladda waa iyada waxa wada dawladnimada waa ganacsatada waay ganacsi hadowna jirin dad ganacsato canshuur bixinay hadaysan jirin dawlad ma jirayso runta idin sheegaya sida loola shaqeeyo ganacsiga ay dawladna hore u kacaysaa marka ha u malaynina inaad ka duwan tihiin ganacsatada xagga joogto inaadan idinka qayb ka ahayn Soomaaliya tihiin ganacsigiina iyo ka wadanka sida la isku xir lahaan waa inaad ka fikirtaan dawladana in ka warqabto wixii fududeen iyo nidaam lin kala shaqeynayeen hadaadan ka shaqeyn wax shaqeynaa ma leeyin wadamada kale waxay leeyihiin wax la yiraahdo multinational companies company ad waaweyn dawladda markay daabato dawladaha ay ka dhasheen dagaal ay kugu soo qaadi karaan annaka companies waaweyn ma qabno companiyadeena waa idinka marka inaan idin ilaashano hadii aan kari wayno macnaheedu waxa waaye dad jira manihin waxaan ilaashanayna ma lihin
وحواي فشل كي أنا دي شيء إني قيب كتاي ولا فشل ما يواي فشل واي مركا نمي هو وحكلو آد ومهم سن عربو إن وحين كاغا شيء مركا هشي سدس ودمدا اللي لقلاي هل يلا معها أما يدو ما عرفتي عالمي هو دم بدنا لسلقلا أفريقيا هان تشاينا تركيا بايلاترال مركي تاينا ودم بدنا لا ودا قلا مركا مهم آياتهين إن الإسليدان معها إن أنت إسكو كوبتان معها مسكح دين إن فرتان مالقش إن السمايو أو دتك أتكفى إيدان وحي سومال لو قبناي إن أتقيب dadka saboolkaas ee wuxuu uga bixi karaa in ganacsatada ay samayso shaqo abuur oo dadka ay shaqo helaan idinka maanta inta joogtiin xagga shaqo waa ka wayseen waa soo cararteen inta shaqo ka hesheen inta ilaa shaqo jirtay dadkii aad ka soo tagteen shaqo ma hayaan haddii aad wax bedeshaan idinka linka rabaa shaqo abuur inaad u dhistaan ama ganacsatada laga rabaa dadkaas inay shaqo u abuuraan in saboolnimadaas iyo aan ku jirno ma aha Soomaalidana waxa lagu yaqaanaa inay dhabar adeeg ay sameeyaan ay ka faa'iideystaan ma xaalad kasta lagu jiro inay dad ma aragta adag oo isbedel raadin karo xaaladooda maareen kara inay yihiin arintan arin yar ma aha ha isliidina idinka linka raba wadanka waa idin baahan yahay nin walbo muxuu ahaa damiir Soomaalnimo ku jirto waa inuu qayb ka qaataa laakiin haddii la leeyahay aniga galay meesha aan ku dambeynayna idin sheegay 100 sano haddii aan sii joogno ama 200 sano nimankii hadda aan sheegay xaaladan ayaan ku jireynaa kamana bixino marka waxyaabaha inta i keenay marka oo muhiimadda ay tahay isbedelka aan raadinayo magacaan ku raadinayaa magaciina أنا قانا قاري وحاوس عدنا وايدين شيء إن ماشى سيتو هدي غير وجرتنا أن قارو اسبدل كأنه إلهي سبب يقعد يقعد إنا كشقيو لكن وحليري ننكلي جسم سعون قرب هدون هيسن دنتو أياسكو كين قسم دنتو جود مركي لجارانا دنت لجارايا haddaysan majaamilo ahayn warkiina waxaa ku jiray maanta diyaara u nahay doorasho haddii la yiraahdo adanku dooran lahayn haddii ay arintaas dhabin ka tahay inaad ka dhabaysaan ayaa linkaaga baahan ninka aan isu maleynaynin inuuna xildhibaan ahayn waxaa idiin sheegayaa kulligiin inaad xildhibaan aad tihiin maxaa yeelay nin walba xildhibaan uu leeyahay nin walbana hadoon isaga xildhibaan ee walaalkiisa ah saaxiibkiisa ah seedigiisa ah adeerkiisa ah oo odayaal dhaqameedkiisana wax soo bixiyo haddii ay dhabin ka tahay marka inaad ila gurmataan in aan wadankan aan badbaadino wadanka badbaado u baahan yahay inaadan meel laxaanad igaga harin garab hiil iyo hoob inaad garab istaagtaan haddii ay tahay waxa aan ka sheekeynayna majaamileys ila meereysay ay tahay insha Allah ilaahay din ma aragtay nin walba ilaahu naxariista laakiin aniga meel aan ku harama leeyahay dagaalka waa galaya khayran idin rajaynaya ruuxi gooni qabiil u taalan ma leeyahay Soomaaliman in la hadlaya nin meelahan gaaban ku soo haray miihi Soomaali waa aqaanayo hadda ani kuma cusbiyo 24 sano ka soo dhax shaqeynay Soomaalina waxa fahmi karo ninka iyaka wax u qaybi baarlamaanadana ee maamul goboleedyada ninkii soo dhisaanay marka waxaan ogeyn ama aragtay been iyo nidaam iyo ma aragtay xagga marka la soo dhigo waxaan aaminsanahay dadka Soomaaliyeed inay ehel yihiin inay u baahan yihiin dad maanta badbaadiyo marka niman yahow ilaahay khayr ha idin siiyo insha Allah arin meeshaas ay maraysaa waxaan in ka qariyana ma lehina runtii inaan isu sheegno maanta aan wadanka ku soo celino jidka saxda loo baahan yahay nin walba isaga iyo garaadkiisa sidoo ilaalo gurman lahaa
iyo nidaam walba siday u socdaan waa kaas qeyraan idin rajaynaa ilaahana ka baryeena binu aadam ma aha qeyraan idin rajaynaa wabilaahi towfiiq